سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب بيان زوال تطهيره. وباب يهي به لو ويسيستي ضمير كالكسون نقنيه بيه لغو ظهارة قاتي ظاهرين توضو هنا يزو شيء عدين تيضو بابي، يعني بيه لغو ظهارة قاتي يعني حالي كسدرسي وقودن بيه كغسو هذا اللي من نجاس با نسوى ظاهر وحديث سو عديسين بيها سي ظاهريهين. waxaa hadda laga hadlayaa oo baabkan laga hadlayaa biyihii nooca ah garanna inay daahir yihiin, laakiin wax ma daahirin karaan, mutahhir ma yihiin way macna. marka wuxuu leeyahay sheekhu daahirintoodii ay wax daahiriyaan inay zuushay cadaynteedu baabu yahay. xagga horena muxuu ahaa inay daahir yihiin. waxaa kala gedisan marka oo fuqahadu ay kala qaadayaan daahir iyo mutahhir. biyaha waxay u qaybiyaan daahir mutahhir ah, kuwa lafahooda daahir u ah waxna lagu daahiriyo lagu isqaato lagu qabisto oo axdaasta daahirisa. kaas waa biyaha ay dhahaan almaa almutlaq bay dhahaan. qaybta labaadna waxay yidhaahdaan waa daahir غayru mutahhir, lafihiisa daahir buu yahay laakiin waxba ma daahiriyo. waana biyaha ay mustacmalka lafdigaas u isticmaalaan almaa almustacmal bay dhahaan. qaybta saddexaadna de waa biyaha nijaasoobay wey, oo kuwaasi daahirnimadii bayba waayeenba. marka halkan wuxuu kaga hadlayaa qaybtaas la isticmaalay laakiin daahirka ah, loo isticmaalay lirafci alxadath laakiin daahirka ah. kuwii daahirka ahaa mudahhir ma noqon karaan, wax ma lagu daahirin karaa. wuxuu leeyahay marka dahaaradoodii may tadhiirintoodii ay wax daahiriyaan inay zuushay oo ayna waxba daahirin karin, taas cadaynteedu baabiyo. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوله لا يغتسلن يوسن قبيسن أحدكم متكين في الماء بيه دحضر الدائم فديي وهو إسقو جنوب جناب قبا إسقو مد جناب قبا بيها فديي يوسن قبيسن. طيب الدائم بمعنى الساكن بيها فديي ينسعن وهو جنوب إسقو مد جناب قبا. فقالوا وحيدين رجي أرضها يا أبو هريرة حديثك كدغي سنه. قالوا وحيدين يا أبا هريرة كيف يفعل سويل سمينا روحي مركو بيفدي كريمات وسن جنابه قبو يوسن دخدوده ku qabaysan baa oo usan dhex gelin. muxuu sameeyna wuxuu yiri qaal Abu Hurayra wuxuu yiri yatanaawaluhu qaadanaya tanaawulan qaadasho ama weel darso ama gacmaha darso waa qaadan laakiin ha dhex gelin. taasi waa fahamka Abu Hurayra waa yatanaawaluhu tanaawulan. wuxuuna wadaa macnaha la diiday waxa weeye dhexgelida iyo muqurashada. oo waxa wariye xadiidkaasi muslim baa wariyay ibn Maajah iyo ibn Maajah baa wariyay. طيب riwaayadaasi marka hadda waxay ku tusaysaa aslan ba inaysan banaanayn biyo fadhiya in lagu dhex qabaysto, janaabana looga qabaysto. يعني قبيسكي كلية oo aad dhex gashaan la ogoleen
nahyigaasi daahiriyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin litahriim waana asalka nahyiga dilaaladiisu waa taas inay xaraam tahay in la dhex galo lagu dhex qabaysto adoo janaabo qaba daahirka nahyigu waa sidaa macna laana النهي يقتضي التحريم ومعنى طيب علماء قارنا waxay leeyihiin ma tahriim ma gaarsiisna karaahiyo wax way dhaayeen wali ahmed waxa u sugnaaday waa Daawud iyo Abu Daawud waxa u sugnaaday la yabulanna yuusan kaajin ahadukum midkiin fil maa'i bihi dhaxdo yuusan ku kaajin ad-daa'imi ee fadhiyay wala yaghtasil yuusan qabaysani fihi biyaha dhaxdooda min janaabatin janaaba yuusan ka qabaysan طيب riwaayadaasina way sugan tahay oo lafdiga Ahmed iyo Abu Daawud ay soo saareen kii hore wuxuu kaga gedisan yahay xagga macnuhu kaga gedisan yahay kii hore wuxuu faa'iideeyay yaani wax weeyaan al-man'u min al-ightisal fi al-ma'i ad-da'imi lil-janaba kaadi musan ka hadlayay biyaha ku kaadintooda iyo ku kaadin la'aantooda lafdiga hore muusan u tacaruday laakiin wuxuu ka hadlay adoo janaabo qaba biyo fadhiya ku qabaysan hadhex gal طيب lafdigan Ahmed iyo Abu Daawud ay soo saareen laba macno kala madax banaan buu faa'iideeyna waa mid koobaad wuxuu reebay biyaha fadhiya in lagu kaajo طيب والنهي في اصله يقتضي التحريم وانا sida ay zaahiriyada iyo xanaabiladu ku tagan macna biyaha fadhiya ku kaajo wala yaghtasil fihi min janaabana yuusan kaga qabaysan labadoodiyo mid walba goonidiisa loo reebay waa ha ku kaajin way madax banaanta ama marka janaabo qabays inaad ku qabaysato ku talagal ama qabays ha ugu talagali kaadida sideedaba ha ku kaaj biyo macna fadhiya طيب janaabana ha kaga qabaysan sideedaba ama ku kaadi ama ha ku kaadin laakiin janaabaha kaga qabaysan ha dhex galin biyo fadhiya riwaayadan dabayadu waxa ku dhis marka al-man'u min kulli wahidin min al-bawl wal-ightisal fihi ala infiradihi mid walba goonidiisa u reebtay kaayadana gooni bay u reebtay ku qabaysigana gooni bay u reebtay adoo janaabo qaba طيب lafdi kala inoo imaan doona oo ku imaan doona muxuu ahaayay baabka hukmul ma idha laqatu an-najasa wa hadith Abu Hurayra thumma yaghtasilu fihi lafdigaasina wuxuu ka hadlayaa oo sheegaya inaad kulmiso ku kaadinta iyo ku qabaysiga taas macna intaad ku kaadido haddana inaad ku qabaysato taasuu diiday saddex macno kala madax banaan bay marka alfaadani faa'iideynaysa oo reebaysa midi kaadidii oo kaligeedu reebaya midna qabayskii adoo janaabo qabo kaligiisu reebaya midna wuxuu reebayaa intaad ku kaadida haddana inaad ku qabaysato oo dhex gasho macna mid walba goonidiisa marka macaanida siyaadadii uu siiya u kordhinay طيب sidee looga faa'iideysanayaa marka biyaha yaani la isticmaalay ee xadad rafciinkiisa loo isticmaalay ee mustacmalka fuqahadu ay yiraahdaan inaan haddana loo isticmaali karin طaahirin ama weysaysi ama qabays waajiba inaan mar kale loo isticmaali karin xagee uu ka tusaya xadiistan dilaalada xagee waa sheekha kale wuxuu yiri وهذا النهي نهيغني وعن الغسل ليس كريبي قبيس فيه بيها دخل لو قبيستاي يدل وحو كتسيا نهيغني على انه قبيس كاس لا يصح انسان اصحين ولا يجزي انسان غدينين صوما هذا كدخ قبيستو هذا جنابه قبييه فديا ادخ غشو ظاهر كالنهي وحو فائدينيا inaysan qabayskaasi kaana asixin uusan kaana gudin laano wa haram sida uu zaahirka nahay faa'iideeyay wabitaali yaqtadi alfasad waxba yani wax way kaaga hagaagi maayaan wama dhalika kaasina ma ahanin maxay bihi u noqdeen qabayskii ay muxuu ahay u asixi waay وما ذلك أرنكاس محو من أهان السحد لأنتي يجدد لأنتو
ما أهان إلا لصيرورته أهانشه صدرت موي وحكلا ما أهان فيه أهان مستعملا من الاستعمال أهان بأول جزء قبل كأوه الرأي أو يلاقيه بسبب أول جزء بمستعمل كل نقطة قيبت أوه الرئيسة أو يلاقيه لك المية من المغتسل فيه كاللقوق قبيستي لحديثة انت قيبت أوه الرئيسة كالكل أنت أيا بيه مستعمل كالكت طيب وهذا كان محمول من لوحا باروي على الذي متك لا يحمل أن قادين النجاسة نجاسة أن قاد كريم بيها سيدا نقول ينا وحلو حنباريا إن يهين بيها أن نجاسة قاد كريم ونجاسة نستعد كريم وصوّدا وكهل دونا بيها أن نجاسة حنباري كريم ونستعد كريم ومرك نجاسة الله كلن طبعا نجاسة بيها وبيها يربو لي دونا بيها بدن ما أهبوا لي معنا بيها بدن يهين وفريان oo aad ku dhex qabaysato qabayskaagaasi ma saameynaya haddana waad ku qabaysato laakiin biyaha mustacmalka noqonaya markaad ku dhex qabaysato kadibna aan tadhiirin kale loo isticmaali karin waa markay ka yar yihiin oo ay biyihii yihiin nijaasada xambaarayay oo nijaasada ay saameynaysi markay ku dhacdo qiyaastooda iyo xadididoodana wuu soo wadaa wuu ka hadli doonaa insha Allah وهذا كان محمول من لو حنباروي على الذي كي أي على الماء الذي وارد بيها لا يحمل أن حنبار أن نجاسة النجاسة أن حنبار مد يلو حنبار يوم وأما ما يحملها بيها نجاسة حنبارية ونجاسة قاضنية ونجاسة أي سامين يران صوت درته فالغسل قبيسك فيه بيها دحد اللقوق قبيستاي مجزي مد جذا يوم أم مجزئ مد جذا يوم مجزئ مد جذا يوم طيب فالحديث مركا حديثك لا يتعدى مجد بيو إليه بيها فرها بدن بيها فرها بدن ومجد بيو حكم كيس ومجد بيو من طريق الأولى يعني وحوي طريقة سيحة جسم يعني وحوي بمعنى وحويان ما هبيراتي ومجد بيو بيهاس aan xambaarayn nijaasada iska celinaya xukunku uma gudbayo macna warka murtidiisu waxa waay sheekh hadalkiisu ku saabsan wuxuu rabaa inuu wajiga qaabka loo dilishay xadiidka fasiro wuxuu leeyahay marka nahyigan la reebay biyaha ku qabaysan adoo janaabo qaba wuxuu ku tusayaa hadaad ku qabaysato inaysan asaxaynin qabayskaaga wuxuu asixi waayo sababtu uu asixi waayo waxa weeye bihi waa mustacmal noqday طيب دي هذي مستعمل نقدين وقبيس واجب لقى قبيستي وما اللي يجوه الري سبب مستعمل كل نقدين أنا بوجوه الري وقلي وحكوليه مركي وجوه الرئيسي قيبت وجوه الرئيسي أتكب اللوضة قبيس وجزء كي وجوه الري الله كل أنتي بيبيه كل مستعمل نقدين سيدا الضرابة بين حدث كي كارف عليه مرة في المستعمل نقدين وبيه مركي وبيها ير أن نجاسة استعلين كر أما بيها بدل النجاسة استعلين كرا كوا الله جماعة الله يو قبيس كأتكو قبيسته يجو مستعمل كل نقول مايان ما نسامين يسوع قبيس كأتكو لح قبيسته النجاسة ضطونا ما سامين ساسولي معنا وهذا النهي جني عن الغسل اللي يسكر بقبيس فيه بيها لو لح قبيس الربيد اللي يسكر يدل النهي يقول قدوس على أنه غسل جاس لا يصح إنوسا أسحن ولا يجزي إنوسا قدين وما ذلك كاسنا معها إلا لسيرورته أهانشه صدرت موية وحكا لما أهان بيه أي أهادين مستعملا والله استعمالي أي نقدين بأول جزء بيكون نقدين قبل كأبوه الرئية سببتي أو يلاقيه أولك الميو من المغتسل في يلاقيه فاعل كذوح يلاقيه المغتسل كي قبيسنا يؤكلك الميو من المغتسل فيه بيها لو دخ قبيسنay oo kala kulmo yaani marka qaybta ugu horeysa kala kulanto jirkaaga ay isgaadhaan biyihi mustacmal isu bedeleen mar haday mustacmal isu bedeleena jirka intiisi kaliya xadadkii kugu yaalay mar rafcinayaan waasi goorma طيب وهذا كني محمول من لو xambaaray way على الذي كي به لا يحمل ان حمبارين ان نجاسه نجاسه ان حمبارين بيها أن نجاسة حمبارين
بمعنى وحويان وبيها أن نجاسة استعلن كر ساس معنا بيها أن نجاس هذا كون لا يحمل أن حمبارين أو أن حملين النجاسة أن حملين أو نجاسة أي سامينش كوا يركع أبا لجوضة ونوتج دون يعني حديد دون وأما ما يحملها بيها حمبارية حملي كر نجاسة استعلن كر نجاسة أين سامينين فالغسل قبيسك فيه دحل لو قبيستاي مجزئ مد غدايا وي markaas waa ka gudayaa waa ka saxiya فالحديث marka حديث لا يتعدى مغدبيو اليه حقيسه وما غدبيو ها فالحدث مين قرئ عجيب فالحدث مركوي هذو سيده نقضه سيانا كفي اساسا كفي فالحدث مرك حدث فيه لا يتعدى مغدبيو اليه بيها فرها بدن يعني نجاسه حنبارين وما غدبيو حكمه حكم كيس وما غدبيو من طريق الاولى يعني طريق كسيحه جسن معناه هذا waxa weey biyihi badna qayb kamida markaad gasho oo aad kaga qabaysato qaybtiisi faraha badnayd ee nijaasada iska celinaysay xadadkii u gudbi maayo mana saameynay وبالتالي وجوديا ان aad ku tahaara qaadato saas macnaha ka wada xadad hadilina aniga lagu xigay qoriya فالحديث وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري وحل جور عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثني وحائي ورمتي وحائي حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء أي ورمتي فذكر وحو الشيخي حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نبي ويسيسي حديث في قصاب سنة أو أي وريسي الربيع أي مركز الشيخي يا شيخي يعني عبد الله بن محمد بن عقيل أي حديث الشيخي أو كالشيخي وفي حديث وحا قصاره حديث النبي ويسدي سقصار سنة الربيع بنت معوذ أي نبي كورينيس فيه دحدي سوحا كويم لفظا ومصحه ومصحي رأسه مدحي سو مصح النبي صلى الله عليه وسلم بما بقي وحي سو هري بو كمصح من وضوئه بيه كويسيسنا يوحي كسو هري في يديه غعمه سنه كسو هري مرتين لو غور بمدحه كمصح يعني waxa weeyaan biyihii uu ku weysa qaadanayay markuu dhaqay xubnaha markuu dhaqayay biyihii gacanta ku soo haray uu madaxa ku masaxay laba goor biyo cusub uma soo qaadin waa biyo kale uma soo qaadin biyihii uu qoyaankii gacantiisa ku yaalay buu laba goor madaxa ku masaxay bada'a wuu bilaabay bimuakhkharihi madaxa xaqiisa dambuu ku bilaabay qadaad thumma kadibna raddahu soo celiya masxigi إلى ناسية فوديس سعلي مدح فوديس سعلي وغسله ودق مركا كدب رجليه لبدي سلوقات ثلاثا صدح قرب دق رواه وري حديث أحمد باوري وأبو داود باوري مختصرا حال يهي مثل السوق جابيي ولفظه لفظيسنا وحوي مركو أبو داود وريني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح وحو مسح رأسه مدحس من فضل ماء biyaha raagud ama biyo dheeraad koot oo kaana aha biyadayhi labadiisa gacmood biyo dheeraad ah ama haraa ah oo gacmihii labadiisa gacmood ku soo haray buu ku masaxay madaxiisa lafdigaasi waa lafdiga Abu Daawud mukhtasar ah laakiin lafdiga hore xadiidku markuu dheer yahay Ahmad baa soo saaray saasi macna Ahmad baa soo saaray lafdiga Abu Daawud uu gaaban yahay laakiin xadiiska isagoo dheer buu soo saaray al-Imam Ahmad alayhi rahmatullah طيب حديثكم مركب حديث حسن بعض أهل العلمنا شذوذ بيكو حكومية حديث كاس والله ميلود أيو خلط كي جراب إليه بيه قعنتي سكوسو هذا قيانكي ومدحي سكو مصحي حديث عبد الله بن زيد نوع إيمان دونه وبيع الصب وأصو قاضية أيو كهر إيمان يا إليه حديث كاس أنا كحب بدن سند أهان sidaas daraadeed halka shuduud baa kaga jiray mid labaad waxay leeyihiin xadiis Abdullah ibn Zayd madaxa hal mar inuu masaxay buu sheegay
kanna wuxuu sheegayaa xadiidu rubayc laba goor inuu masaxay labada abeed mukhalafa kaga jirta sida ay culimada qaar kood leeyihiin waxa weeye labada xadiis khilaafba kama dhaxay laana rubaycna waxay sheegtay qaab nabigu u weysa qaatay abdullah ibn zaydna wuxuu sheegay qaab nabigu u weysa qaatay labada qaab waa banaayeen wax tacaarud kama dhaxay laana waxa soo arortay xadiiska ku soo xadiisu Usmaan xadiisu Ali xadiis farbadan oo sifada nabigu u weysaystay kala duduwanta nin walba mar uu nabigu weysaysanahay weysadiisa soo guuriyay qaabab kala gedisan oo kulli wada banaan way mar sidaasaana sax oo xadiisu rubayc waa xasan وانا لو عمل فلي معنا ساسويا والله سمين كره qaabka kale tan qaababka kale soo aroray asaxayna wala sameyn karay طيب xadiidkani marka yaani wuxuu u daliishanaya isaga loo sheeg doono sheekhu isaga ka hadli doono oo baabkan hadda waxa way biyihi la isticmaalay mustacmalka noqday inaan mar labaad lagu dahaaro qaadan karin oo ina wax tadhiirinaynin oo tadhiirintoodii ay zuushay xageeba laga loo daliishanay uu ka hadlo qala tirmidhi wuxuu yiri abdullah ibn muhammad ibn aqil صدوق عبد الله بن محمد بن عقيل وصدوق لكن كل ما وحس لغا الله يقول فيه دحديث تكلم وحكاها الله فيه دحديث بعضهم محدثين تقاركو ايا نينكاسي wax ka sheegay min qibal xifdigiisa dhanka xifdigiisa ayay wax kaga sheegeen xagga kale waa nin cadaaladiisa iyo diyaanadiisa aan laga hadlin laakiin rag baa xifdigiisa duray oo dhanka xifdigiisa xoga xifdigiisa inuu si wax ka ah oo khalal ku jiray ay qaarkood tilmaameen bulay muhaddisiinta وقال البخاري نوحي كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه أحمد بن حنبل إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي هي حميدي عبد الله بن الزبير المكي يحتجون وحي حجي سنشرين بحديثه بحجي سنشرين حديثك عبد الله بن محمد بن عقيل طيب هذا الكاتب حقا واحد مدى وقال البخاري هي إنه كالقوانيه قال الترمذي ساس laga yaabaa in loo fahmo waana sida daahir ka muuqato waa hadalka dhamaantii tirmidhi baa iskale qala al-bukhari dhamaan isaga abdullah ibn muhammad ibn aqil saduq markuu yiri kadib min qibal hifdhihi ayaa wuxuu yiri abu ciisa wa tirmidhi sami'tu muhammad ibn musa'il yaqulu كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث سياسة الترمذي وهذا الكوية لا مركا هذا كان وقال البخاري كما قلنا هذا الترمذي با هذا الكقيتي سهرنا له إلى لا يسوع قالوا من قبل حفظه وقال البخاري هذا الكأنا استجاب بخاري كسو قورني وقال كويس وطا وحور دور يا مركا الإمام الترمذي إنه كيله هذا نين كان له هذا عبد الله بن محمد بن عقيل حديث كيسا أئمده way xujaysan jireen hatta qaar kamida muhaddisiintu xifdigiisa waxa ka sheegeen bimaana xadiiskiisu marka xasan buu noqonayaa waana sida loo badan yahay yaani xadiiska uu ku jiray ala aqalli darajati xasan buu noqonayaa saas weeyaan xadiis xasan noqonay oo la xujaysto noqonay muxuu keenay meeshan wuxuu meeshan u keenay hadalkan حديثك أو ربيع بنت معاوذ بن عفراء أيها وحاكوتشر سنة كيسة عبد الله بن محمد بن عقيل صمه مرك حديث كاس الذي سو نين كاس واحد نين كاس حديث كمنه ضعيف يا مكاني كره نين كاس كوتشر حديث ضعيف بكون نقنيا ما حديث حسن بكون نقنيا سنة هان مرك حديث سنة كيس وحسن نين كاس علّه نقن ماي لأنه وحوي أيمضوا رجاسي جماشي ويح جيسن شيرين أساس كذا معنا طيب قلت وحن وعلى تقدير أن يثبت ماشي مركب حديث كان نبي بيه كعنتي سقصوا هري أيوه مضحكم مصحي مضح مسحدي سقصوا واجب ما أو الركن ما حد نبي كعنتي سقصنا oo markuu weysaysanay xubnaha kala dhaqayay gacantiisa ku soo haray oo qoyaan ah buu madaxii ku masaxay taas oo macnaheedu ma aha
biyo loo isticmaalay xubin kale daahirintii ayaa madaxii lagu masaxay oo biyo mustacmal ah baa haddana loo isticmaalay inay haddana lagu tahaaro qaato hadalkii marka sheekhu aad soo taqriirisay ee ahaa biyaha lagu tahaaro qaatay mustacmalka noqday wax kale ma tadhiiriyaan soo xadiiskani kama hor imaanayo sooma soo xadiiskani ma bushinayo saasuu u keenaya marka wuxuu rabaa xadiidkan waxaa daliishaday qolyaha ra'yiga ka hor jeeda wuxuu rabaa inuu ka jawaabo marka ma daliishanaye laakiin wuxuu u keenay inuu qolyaha daliishanayo ka hor dago intaadan xadiiskaba keeninoodan u xujaysanin inuu jawaabtiisa ku sii siiyo oo giraada xadiiska horta waa sidaasoo horta sanadkiisa wax waa laga sheegay kow oo ninkaasaa war ku jira waa midda labaad ee hadduuba sugnaadaba jawaabtiisa waa tan qabso qultu waxaan idhi buuri وعلى تقدير أن يثبت هذه لقدره إنه سجناده أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس والنبي إنه مدحي سمسحي بما دي إنه كم مسحي بقي الصوحري دعنتي سكوحري أو من بلل يديه لبدي سكعمل قيان كوديئة إنه مدحي سكم مسحي هديبا لقدره كبا الصوقات تنزلا كبا الصوقات هذا السجناده بحديث كاس سجنانتي هذا الباكوتشري لكن هذو السجناده فليس مؤصنها أن يدل متك تصيا على طهورية الماء بيه إني وحظاهريان المستعمل إلى الاستعمالي بيها الاستعمالي أو التطهير لا استعمالي إني هدنا وحظاهرين كران كما تصيا وكلها يسهنو مركو هو حديثك وحان كدو الصنع السبنانتس معنى وزاد لكن هدان كلا أقلاض إنو السبين waxaan ka doodsanahay hadana dilaaladiisa iyo inuu macnahaas ku tusayaan ka doodaya seed uga doodaysaa falaysa mu'sanahan yadullu mid ku tusaya ala tahuriyati almaa'i bihi inay wax daahirinayaan almustacmal ee tadhiirka loo isticmaalay inay mar labaad wax daahirinayaan taa xadiisku marna kuma tusay hatta haduu sugnaado maxaa yeelay li'anna almaa'a bihi kullama tanaqqala markasto uu muxuu ahaayay uu gurguro ama gadgadoomo fi maxalli at-tathhiri meelaha la daahirinayo markasto uu ku wareego oo ku gadgadoomo min ghayri mufaraqatin asagoon bihi ayna faaruqin meeshi ila ghayriha meesha meelan hayn ayna u faaruqin fa'amaluhu biyaha isaga shaqaday qaban lahaayeen wa tadhiiruhu iyo daahirintii ay samayn lahaayeen باقٍ ولي وباق أنا ما بنت بمعنى وحوي دي هو مستعمل أو حمى الظاهرين يا وحن لنا هاي مركي ماشي لجود ظاهرين يا لجود دقي مركي كبحان أو مال كلا آذان أما طول كي آذان أما حبك أنت ضعفان بويل كلا كود ضعفان أما ماشي مركي ضعفان بان لنا هو مستعمل لكن حبك لجود ظاهرين يا أنت يكون حوريجه هيا ومثلا gacantay ka tageen muxuu ahaayay farahay u wareegeen wajigay ka wareegeen gacantay tageen gacanta marka dhaqaysay bay ka wareegeen inta ay meelihii la dhaqay la daahirinay ku dhex wareegahayaan biyuhu wali mustacmal ma goor mustacmal noqonay meelihii lagu daahirinay markay ka go'aan oo faaruqaan oo meesha meelaan hayn ay tagaan markaas aan leenahay waa mustacmal warkaas soo warcadna marka nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu sameeyay xadiisku wuxuu ku tusaya xadiisku wuxuu ku tusaya madaxa masiixidiisa maxaa ka horeeyay soo gacmaha dhaqitaankooda ma gacmihii markuu dhaqay sooma ayuu biyihii ku soo haray gacmaha dhaqitaankooda qoyaankii ka soo haray intayna wali gacmaha dhaafin oo meel kala aadin ayuu madaxii ku masaxay mustacmal ma aha sooma mustacmal waxaan dhihi lahayn hadii biyaha soo dhaafay jirka oo dhulka gaaray ama weel gaaray intuu dib uga soo qaato madax haduu ku masaxi lahaa markaas aan dhihi lahayn bihi mustacmalka ahaabu hadana isku daahiri markaas uu daliilku socon lahaa oo xadiiska loo daliishaday laakiin hada daliilku ma aha ama nasubnaan ku dhihi ama dilaaladiisan ka doodiyo waxaan ku leeyahay qaabkaad u daliishanaysa ma bahe xadiidka biyuhu nabigu isticmaalay mustacmal ba ma ahayne wali xubinkii bay baaqi ku ahaayeen biyo wali xubinkii baaqi ku ana mustacmal ma saasule لأن الماء به كلما تنقل مركزته وروريغو
في محل التطهير يعني ميلها للطاهرين أيوه إلا دقيو ويسدا أما قبيس ميلها أنتو كور وريجيو من غير مفارقة السجون فاروق أما فاروق غير كده إلى غيرها ميلها غير كده السجون فاروق فعمله بيها شقدي قبل هاي المرة وتطهيره إيا طاهرين تيسمين لهاي باق ويا مركا ولي وباق طيب ولهذا سيدا درادل يا لا يقطع أوسن قوينين عمله بيها شقدي قبل يا طاهرين تا في هذه الحال حال كإسجا تغيره حال كوي وحال كحبنك ولي باقي كويا تغيره ما قوينيو اسبدليد بيوه أي اسبدلان بالنجاسات نجاسوين اسكو بدلان والطاهرات إيوه وحيالها طاهر كا اسكو بدلان هذا القادر وحوي وتعليلنا يا وحوليه بيوه مثلا شقدي قبطاني وظاهرين صوما إنه حبنك ظاهريا مثلا حبن نجاسوي بظاهرين يا حبنك نجاسوي مركا لغو دقيو أما الصحراء أما كادي أما نجاسة لغا دقيو بيه intay meesha lagu dhaqayo ku wareegayaan oo shaqadii hayaan xubinkiina aynan ka bixin ma dhahayna waa nijaas laakiin markay xubinka ka infisaalaan lagu dhaqayo nijaasada lagu dhaqayo banaanka uga baxaan baa waxaan leenahay biyahaas waa nijaas ayay nijaasa lagu dhaqay laakiin meeshii ay dhaqayeen intay ku dhex jiraan oo hawsha hayaan waa nijaaso ma dhahayn maxaa yeelay haddaan dhahno waa nijaaso seed wax ugu daahiriseen waay su-aashaas ay nagu imaan biyihii markii ugu horreysay ood ku istijaysanaysa markii ugu horreysay gaadheenba meeshii saxarada laga dhaqayay ama kaadida haddaad tidhaahdo markiiba way nijaasoobeen dee hadday nijaasoobeen say kuu daahirinayaan waay marka shaqada intay hayaan oo wax daahirinayaan biyuhu nijaaso ma aha ha infisaaleenoo meesha ha dhaafeen meel kale ha aadeen markaasaan ka hadlaynaa macnaha ama ma ahee hadday isbedelaan oo waxyaalaha kale daahirka isku bedelaan ma dhahayno biyuhu shaqaday qaban lahaayeen oo daahirintii away waayeen ma dhahayno maxay ka wadaa maalan yacni waxaa la daahirinayaa meel maalan ama caano ama waxyaalo ayaa muxuu ahaayey midabka biyaha bedelaya ayaa meesha haysta وانا ميل نجاسة بيه مركي لغو شبو ميدبكودي واسبدلية بيه هدي ميدبكودي اسبدلنا بيه نمدي واكتاكين عاني النقدين صوما عانا عدب النقدين عانها اي النقدين وطاهر نجاسة معه وطاهر نجاسة معه طيب ظاهر ايقوا بيه ايقوا ابا وحي اسكوب بدلين وح ظاهر شقين هيان مركع isbedelka biyihii ku dhacay oo biyanimadoodii ay ka tageen inta ay meesha shaqada ka hayaan hawshay qaban lahaayeen oo daahirinta ama lumayso laakiin goormay lumaysa meesha shaqada ay hayaan markay ka baxaan midabkoodiina isbedelo urkoodii isbedelo waxa uu isku bedeleen shay daahira u yahay ba waxaan leenahay biyahani daahir haba ahaadeen laakiin mudahir ma لكن انت الشقة هيان ما يقول معنا ولهذا سيدا درادت لا يقطع مقوينيو عمله بيها شقة قبل هيان وظاهرين تا في هذه الحال حالك وحالك أي كل حسوجيهن ماشي ظاهرين ايه تغيره مقوينيو بيها اسبدل كوده بالنجاسات أي اسكو بدلان والطاهرات يحيالها الظاهر كاسكو بدلان نجاسات اللي قلنا قي اسكو بدلان أما شيء ظاهر بدلين بمعنى طيب ساسو هذه ورقة مرتديس بيها مستعمل طهارة لو استعمالي إن مركل طهارة لو استعمالي كرونه مظهر أين النغون كرينين ومذهب كالجمهور توعي طيب ومذهب كالجمهور توعي قفتوا إليهن بيها المستعمل بين نقدين لما ليسكمان الظاهرين أحاديث بدن بيود للشنيان والدلالة دور بدن أكتاين يضاد بدن رواية عن مالك يا أبي حنيفة وإليهن الظاهرية ولبا بيها هدي الاستعماله أو ظاهرين لو استعماله أين النجاسوبين أنا أين إسبدلين مركل هذا نوع لو ظهر قادم ساس دراد أكتر واحد بيه مستعمل إلى هذا كم بتشرب
بيه والله بيه طاهر أو مطهر بيه النجاسة أما بيه مستعمل وتطهير لا استعمالي وأن هذا التطهير لبعد جلي كريم عند هؤلاء وحش رما الدليل قوليها سي دليشدين كل وحي إليهين وحكو عد متشرو sababta loo diiday inay tahay mustacmal bay noqdeen asbaab kala dhici karta inay nahyiga ku saabsanto mesela xadiiskii ay dalishadeen aha biyaha fadhiyaha ku qabaysanina soo qoladina meena dhihin sababta loo reebay biyihi ba mustacmal noqonay waxay yiraahdeen laazim ah idinku baa warka la soo baxay cilad idinku aad soo fahanteen oo weeye laakiin waxa dhici karta in sababta loo reebay ay tahay lil istiqdaaq biyahan yaan la qulunsanin oo dadka ka baydaysanayeen qudhi noqon cilooyin kala jiri kara laakiin wax cad ma haysan wax cad haduna jirina biyaha asalkoodu waa inay yihiin daahir mudahhir asasa haday ka baxayaan waa ina daliil cad keentaan daliil cadna ma haysan oo nusus muhtamila oo meesha ku haysan ra'yigaasana sawaab wax biyo mustacmal la yiraahdo oo noocaas oo lagu dahaara qaadan karin واحد دليل رسمي وكتوسي وكعب مجرو أدلة اللو دليشدينا كل جد احتمال باكوجر استنباطات دي احتمال هو معنا صار راجح حق بدن لكن مسألة خلاف كده حق بدن هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم